kulanti wanaagsan halkan warqaadtii waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda Soomaaliya kaga hayna kuwooda ugu waaweyn xubnaha mucaaradku liiskooda ay u gudbiyaan ra'iisul wasaare Roble ee dhexdhexaad la'aanta lagu eedeeyay oo kala bar laga saaray guddiga doorashooyinka waxaan idiin soo gudbin doonaa mas'uuliyiinta ra'iisul wasaare Roble arrintan uu xil saaray oo bannaanka keenay tirada xubnaha ay go'aamiyeen in laga reebo guddiga haddaba miyay mucaaradku ku qanci doonaan amisom oo warcad ka soo saartay fariintii dawladda federaalka Soomaaliya kadib duqeymihii sharci darrada ah ee Kenya ay ka fulisay gobolka Gedo haddaba miyay amisom la safatay Kenya wasiirka warfaafinta oo degdeg u fuliyay amar uga yimid filla Soomaaliya iyo xogta madaxweyne farmaajo oo ka carooday habtabinta warbaahinta ee xilliyadii dambe taliyaha ciidamada xoogga dalka General Duwa oo go'doon ku abaadiyaha shabeellada dhexe iyo xog laga helay weerar abaabulan oo al-shabaab ay qorsheeyeen natiijada doorashada golaha wakiilada Soomaaliland oo si rasmi ah loogu dhawaaqay xisbiga wadani oo xubnaha ugu badan helay iyo madaxweynaha Puntland oo shaaciyay inay jiraan dad diidan horumarka maamulkiisa xilli Puntland ay isku diyaarinayso doorasho ku salaysan ururo siyaasadeed qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa warka insha Allah waana xataa taariikhdu ay ku beegan tahay 6 bisha 6 sanada 2021 daawada nagala qayb qaado faafinta warkan adigoo gaarsiinaya asxaabtaada kuna shargaranaya baraha bulshada waad ku maasantahay qaybta commentiga haddii aad noogu reebto aragtidaada mar kale kulanti wanaagsan aynu ku bilowno warka warqaatiyo guddiga xalinta khilaafaadka guddiga doorashooyinka ee tabashada laga keenay ayaa xalay saqdi dhexe kadib waxay ku dhawaaqeen in ay guddiga doorashooyinka ka saareen kala bar tirada la soo gudbiyay ee cabashada laga qabay 34 xubnood ayay guddiga ka saareen liiska guddiga doorashooyinka heerarkooda kala duwan ee kala ah guddiga heer federaal ee xalinta khilaafaadka iyo guddiga doorashada maamul goboleedyada Soomaaliland iyo beelaha gobolka Banaadir tirada dhinac kasta laga saaray ayaa waxay kala yihiin guddiga heer federaal ee maamulka doorashada waxa laga saaray 11 xubnood guddiga xalinta khilaafaadka doorashada waxa laga saaray 3 xubnood guddiga doorashada Soomaaliland waxa laga saaray 7 xubnood guddiga doorashada Galmudug waxa laga saaray 5 xubnood koonfur galbeed guddiga doorashada waxa laga saaray 3 xubnood guddiga doorashada Hirshabeelle waxa laga saaray 2 xubnood guddiga doorashada beelaha gobolka Banaadirna waxa laga saaray 5 xubnood Puntland waxay la noqotay hal xubin Jubbaland hore ayay u soo bedeleen xubin ka mid ah guddiga oo geeriyootay iyo kuwa cabashada laga qabay waxa kale oo jira 3 xubnood oo guddiga doorashada Soomaaliland ka mid ah oo cabasho laga keenay taasoo guddiga ay sheegeen inay xal ka gaari doonaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo lagu daray gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya dhinacyada laga saaray xubnaha ay soo magacaabeen ee guddiga doorashada ayaa la siiyay muddo 2 maalmood ah si ay u soo bedelaan xubnahaasi guddigu ay ka saareen guddiyada xalinta khilaafaadka iyo doorashooyinka tilaabadan waxay noqonaysaa mid hore loogu socodsiinayo doorashada waxaana ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu guddiga ku bogaadiyay dadaalka ay bixiyeen iyo tilaabada ay qaadeen isagoo mar kale ra'iisul wasaaruhu carabka ku dhuftay xubnihii kale ee shaki laga muujiyay in gabi ahaanba guddiga laga saari doono si doorashooyinka dalka ka qabsoomaya ay u noqdaan kuwo xor iyo xalaal ah qaybiyo hore ee warka warqaatiyo baa daawanaysan howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya amisom ayaa war ka soo saaray eedayntii ay dawladda Soomaaliya u jeedisay ciidamada Kenya ee duqeynta ka fuliyay qaybo ka mid ah gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya war saxaafadeed ka soo baxay amisom ayaa lagu sheegay inay heshay bayaankii ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ee ku taariikhaysnaa June 4 2021 bayaankan oo la xiriiray warbixin ku saabsan duqeymo cirka ah oo lala beegsaday dad rayid ah oo ku noolaa gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya iyadoo lagu eedeeyay inay duqeymahaasi fuliyeen wadan ciidamadiisu ay ka mid yihiin amisom waxay hadda ku howlan tahay arrinta macluumaadka ku saabsan ashilka la soo sheegay waxaana si dhow aan ula shaqayn doonaa dawladda federaalka ee Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah iyo dhammaan daneeyaasha kale ee ay qusayso inta aan wadno baaritaanka arrintan ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay amisom ayaa sheegtay inay waajib ku tahay inay si habsami leh ugu fuliso hawlaheeda loo igmaday Soomaaliya si waafaqsan waajibaadka ciidamada loo igmaday iyadoo la raacayo sharciyada caalamiga ah ee quseeya howlgalka amisom waxay si buuxda u baaraysaa dhacdada la sheegay
wixii ka soo baxana waxaan la wadaagi doonaa dhammaan daneeyaasha ay qusayso ayaa sidoo kale qoraalkan lagu yidhi. si kastaba amisom waxay sheegeen in arrintan ay si dhab ah u baari doonaan islamarkaana natiijada ka soo baxda ay soo gudbin doonaan, iyadoo Kenya haddii qaladkaasi lagu helana lagu ciqaabi doono. amisom ciidamadeedana aysan ka bixi karin amaba gudaha Soomaaliya aysan ka fulin karin wax ka baxsan howlgallada loo igmaday iyo sidoo kale shuruucda caalamiga ah howlgallada quseeya. shabakada wararka ee Warqaa Tube ayaa daawanaysan. xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysay in agaasimihii guud ee wasaaradda warfaafinta Naasir Xuseen xilka laga qaaday iyadoo la magacaabay agaasimo cusub. Cabdullaahi Maxamed Xayir oo horay u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga ayaa la sheegay in xalay loo magacaabay xilka agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya. waxaa horay u soo baxayay in uu jiro cadaadis dhanka madaxtooyada gaar ahaan xafiiska madaxweynaha uga imaanaya wasiirka warfaafinta Cismaan Abuukar Dube, kaasi oo ahaa in la bedelo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo dhammaan agaasimo waaxeedyada wasaaradda. xafiiska madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa aad u dhibsaday hanaanka tafaftirka ee ay qaadatay warbaahinta qaranka oo tan iyo markii mas'uuliyadda ammaanka doorashada lagu wareejiyey ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ay si toosa warbaahinta dawladda u tabinaysay wararka mucaaradka, iyadoona taasi meesha ay ka saartay in warbaahinta dawladda ay noqotay mid ku hadasha afka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. nidaamka dhexdhexaadka ah ayaa la sheegay in xafiiska madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu arko mid caqabad ku noqon kara ololihiisa doorashada, maadaama doorashada soo socota kaalin muhiim ay ka ciyaari doonto warbaahinta. xogta aynu helnay waxay sheegaysaa in qorshaha isbedel ee lala damacsan yahay wasaaradda warfaafinta uu intaasi ka ballaaran yahay, waxaana socda qorshe agaasimayaal cusub xilka looga qaadi doono. waxaa agaasimayaasha xilligan diiraddu ay saaran tahayna ka mid ah agaasimaha TV-ga qaranka, agaasimaha raadiyo Muqdisho iyo sidoo kale agaasimaha wakaaladda wararka ee Soona. arrintan ayaa waayahan aad isha loogu wada hayay maadaama isbeddel badan oo dhanka tafaftirka ah laga dareemay warbaahinta qaranka oo si siman u qaadanaysay wararka musharaxiinta mucaaradka iyo siyaasiyiinta kale ee ku jira dowladda federaalka iyo weliba siyaasiyiinta kale ee muxaafadka ah. waxaa arrintan sidoo kale ay ku soo aadaysaa iyadoo dhowaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble uu dhimay awoodooda golaha wasiirada ee xukunkoodu uu dhammaaday, isagoona sheegay in xilka qaadis iyo magacaabisa toona aysan samayn karin si looga fogaado in uu yimaado khilaaf cusub oo caqabad ku noqon kara doorashooyinka dalka. weli Warqaa Tube ayaa daawanaysan. taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Generaal Duwa Yuusuf Raage ayaa muddo ka badan 10 cisho waxa uu ku sugan yahay deegaano ku yaala gobolka Shabeellada Dhexe oo maalmihii ugu dambeeyay ay ka socdeen howlgallo ka dhan Al-Shabaab. ciidamada dawladda oo ka kala baxay degmooyinka Jowhar iyo Raagaceel ayaa Al-Shabaab waxay ka qabsadeen deegaano badan, iyadoo wixii markaasi ka dambeeyay ay Al-Shabaab wadeen abaabul weerar ka dhana ciidamada dawladda sida aan ka soo xiganay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. sida ay shaaciyeen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Generaal Duwa Yuusuf Raage ayaa la qorsheeyay in uu soo baxo Arbacadii, hase yeeshee waxaa la helay xogta sheegaysa in Al-Shabaab ay diyaariyeen weerar abaabulan kaasi oo lagu beegsan lahaa kolonyada taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. taliyaha ciidamada xoogga dalka Generaal Duwa Yuusuf Raage ayaa la qorsheeyay inuu Arbacadii ka soo baxo deegaanadaasi, hase yeeshee waxaa la helay xogta sheegaysa in Al-Shabaab ay diyaariyeen weerar abaabulan kaasi oo dhacay Khamiistii toddobaadkii tegey. sidoo kale taliya Duwa Yuusuf Raage ayaa la sheegay in safar kale uu baajiyey kadib markii la sheegay in Al-Shabaab ay diyaariyeen gaadiid qaraxyo laga soo buuxiyey wadooyinka miinooyin badan ay geliyeen, sidoo kalena ay dagaalamayaal badan ay isku abaabuleen. dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa maalmo ka hor weerar waxay ka fuliyeen deegaanka Warciise ee duleedka degmada Jowhar, waxaana ay ku dileen Allah u naxariisto Korneyl Maxamed Cabdi Waaxid oo ahaa taliyaha ciidamada xoogga dalka ee Gorgor qaybtooda 6aad. Duwa Yuusuf Raage ayaana la sheegay dhankiisa howlgallada ka socda gobolka Shabeellada Dhexe inuu si toos uga qayb qaadanayo. ciidanka xoogga dalka ayaa toddobaadyadii dhawaa xoreeyay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe, inkastoo Al-Shabaab war shalay ka soo baxay ay ku sheegteen deegaanada qaarkood inay iskaga baxeen ciidamada xoogga dalka dibna ay u qabsadeen. qaybihii dambe ee warkaynu isla soo gaarnay.
waxaa goor dhoweed lagu dhawaaqay natiijada doorashada golaha wakiilada gobolka Maroodi Jeex oo ahaa gobolka ugu dambeeya ee la wada sugayay natiijada ka soo bixi doonta. natiijada gobolka Maroodi Jeex oo leh 20 xildhibaan ayaa saddexda xisbi ee ku tartamayay musharaxnimadooda waxay u kala heleen sida soo socota. kulmiye waxay ka heleen 8, wadani waxay ka heleen 7, ucidna waxay ka heleen 5. natiijada cusub ee gobolka Maroodi Jeex ayaa soo dhamaystiraysa doorashada golaha wakiilada cusub ee Somaliland oo ka kooban 82 xildhibaan iyadoo ay xisbiyadu u kala heleen. kulmiye waxay heleen 30, wadani waxay heleen 31, ucidna waxay heleen 21. natiijada ayaa waxaa ka muuqata in xisbiga aan talada haynin ee wadani uu ku horeeyo marka la fiiriyo natiijada ka soo baxday golayaasha deegaanka ee dhawaan la soo doortay. ugu dambeynna madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in dad badan oo diidan horumarka Puntland ay isku dayayaan inay ka hor yimaadaan nidaamka xisbiyada badan ee ay Puntland ugana guurayso midkii qabaa'iliga ahaa. madaxweyne Siciid Deni ayaa daboolka ka qaaday in durbaha ay qaylo ka soo yeertay qabaa'iladii Puntland oo mid kasta uu doonayo in wixii qabiil ahaan uu ku heli jiray uusan ku waayi karin nidaamka dimuqraadiga. qabaa'iladii isuma noolaa isimadii waxgaradka ahaa runtii way yaaban yihiin. beelda Cali Faarax oo ufeyn ka hadlayay wuxuu noo sheegay inay dadkii isnaceen iyadoo aan la gaarin doorashadii ayaa la leeyahay waxayna xaggaas dhiga maalin walba gar ayay ku jiraan. sidaasi waxaa yidhi madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. waxaa hadalkiisa Siciid Deni uu ku sii daray nidaamkan cadow badan ayuu leeyahay. ogaada dad badan ayaa horumarkeena aan rabin, dad badan ayaa in tilaabo aynu qaadna diidan. waxaynu u baahannahay in arrintaasi laga gudbo ayuu hadalkiisa ku sii daray. si kastaba Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in nidaamka xisbiyada ay u guurayso Puntland dad badan oo caqabad ku ay jiraan, hase yeeshee aan loo istaagi doonin shacabka iyo maamulka oo isku duuban ay arrintaasi horey u dhaqaajin doonaan. guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa warkaad kala socoteen warqaad tube. daawad haddaad ku cusubtahay channelka nagu soo biir, subscribe la orkume kadibna fura gambaleelka waxaad noqon doontaa qofka ugu horeeya ee hela xogaha iyo macluumaadka halkan aynu ku soo daabacno. tan iyo kulanti damba nabaday.